madax ka socotay hay-adda dhisaysa wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar iyo sidoo kale injineeradii wadadaasi dhisayay ayaa iyaguna waxay qiimeyn ku sameynayaan wadadaas u dhaxaysa Muqdisho iyo Balcad waxayna sheegeen dhawaan dhismahaasi inay bilaabi doonaan. Ibrahim Cali Nuur ayaa warkan ka soo diray Jowhar. xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhagax dhigay dhismaha wadada 90 kiiloomitir ee u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar ayaa maanta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa soo gaaray madax ka socota hay'adda Enis Inside Company oo ah hay'adda ku guuleysatay qandaraaska dhismaha iyo injineerintii dhisleed wadada. ujeedada ay u yimideen degmada Balcad ayaa ah inay qiimeyn ku sameeyaan wadada oo hadda uu ka muuqdo burbur xoogan. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Balcad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa mas'uuliyiinta waxay ku soo dhaweeyeen degmada Balcad. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaasim Cali Nuur. maanta waa maalin taariikh noo ah anaga hadaan reer Balcad waxaa joognaa buundadii Balcad waxaa bilaabatay oo shaqadeeda lagu jiraa wadada isku xiraysa Jowhar iyo Xamar dhismaheedii ay dhisaysay ama dhaqaalaha ku bixinaysa dawladda Qatar ee walaalaha aan nahay. dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu mahadcelinaynaa maadaama ay anaga noo xuleen in anaga noola dhiso kow nagala bilaabo shirkadii iyo hay'adii iyo systemka groupka ka shaqeynaya ayagana uu mahadcelinaynaa. waxa maanta mar labaad iyo mar saddexaad anaga farxad gooniya noo ah in lugta ugu horeysay ee wadada dhismaheedii laga bilaabo Balcad iyo Xamar Balcad iyo Jowhar waa fursad dahabiya anagoo ku hadlaayo magaca iyo mansabka iyo afka reer Balcad inaad diyaar u nahay wadadan difaacayno la shaqaynayno amnigeeda sugayno meeshii hoon loogala dirane si voluntary ah uga shaqaynayno. dhinaca kale ugaaska degmada Balcad ugaas Maxamuuli ugaas Xuseen ugaas Salaaw iyo xildhibaan Xasan Maxamed Xaaji oo kamid ah baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay dhismaha wadada inay faa'iido badan ugu jirto bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan maanta loo yimid hay'adda Turkiga ee wadada qandaraaska ku qaadatay waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka Soomaaliyeed ayadoo taa inuu dhismo wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar kaalinta libaax leh ee ka qaadatay aadaan ugu amaanaynaa. waxaa kaloo maanta aad iyo aad u soo dhaweynay dawladda Turkiga oo qandaraaska 90 kiiloomitir ayada qaadatay waxayna noo ballan qaaday muddo bil gudahooda ah inay shaqada ku bilaabanayso. waxaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay yani oo na abuurtay ayaan u mahadcelinaynaa ka sokoon waxaan u mahadcelinaynaa dawladda federaalka arrintaas waa taageersanahay deegaanka Balcad iyo maamulka Hirshabeelle oo dhan ogaasha dhaqanka ka soo jeedo. maanta waxaa farxad weyn noo ah dawladda Qatar iyo macal hay'adeeda Qatar jaarijibo aadan ugu mahadcelinaynaa sababtoo ah hadda waxa socdo iskool socdo ceelala la dhisay waxa soo dhan Qatar ka wada yimaadeen waa nasiib wanaag ummadan Balcad waxaan maanta farxad u ah in loo dhagax dhigo ama dhismihii uu bilowdabo. madaxa hay'adda Enis Inside Company Rubil Cagjar ayaa sharaxaad ka bixiyay xilliga uu bilaabanayo dhismaha wadada iyo muddada ay ku qaadan karto dhismaha. acil olarak şu an mobilizasyon ve proje işlerine başladık. hadda waxa muhiim ah waa projectiin la soo saaro cabirkaana wadna waqti ugu dhow waa dhameynaa insha Allah. Önceliğimiz Balat. Önceliğimiz burası olacak. Önceliğimiz Balat yolu. wadada ugu horeysa ka bilaabaysa waa Balcad oo dhismaheeda la bilaabi doono insha Allah. En kısa zamanda başlayıp en geç 1,5 yıl içerisinde 2 yıl içerisinde burayı trafiğe açacağız. waxaan jeclahay inaan hasan ku dhameystiro Balcad ugu baxo Balcad oo dhammaangiis. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Axmed Maxamuud Shitaawe ayaa sheegay haddii la dhiso wadada in si sahlan dhibaatada ay ugu bixi doonaan dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe. maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhiya oo dadka degan gobolka Shabeellaha Dhexe taariikh weyn u leh oo ah maalmaha ka tilmaam doonto maadaama ay heleen wadadii dhibaatada badneed ka jirtay oo muddo 25 sano burbursaneed. gobolkan waxa uu ahaa gobolka ugu horeeyo Soomaaliya hadii la yiraahdo gobolada kale laga kaba jira maantana wuxuu joogaa
in asaga wuxuu kaba iska dhaafee asaga wax cuno laga waayo asoo barwaaqadina dhaxtaal dhibaatadaasna waxa uu keenay wadalaanaya Ibrahim Ali Nuur TV-ga Universal degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe Mustafa Abdullahi Keesana oo kamid ah aqoon-yahaninta Soomaaliland oo TV-ga